meeshaas ay qaniin halkaas ka qabatay miya halkan ay qabanaysan subhanallah meeshan ay qabanaa waqta wallahi ma garanay qaab aan wax kugu soo tabiyo quracan iga dambeeyo ee dhinacna ka oodan ee aad moodid in xoolaha lagu xareeyo waxa muddo sanado ah ku hoos xiran aaba Soomaaliyeed oo da' miirkana ka waalan silsilad ayaa lugta looga taagay qorraxda roobka dhaxanta iyo kuleylahaba waa isugu mid halkaas ayuu ku jiraa wallahi soo dhulka u qoday xataa god ay noqotay waa idin tusi doona isoo raaca la ilaha illallah ya lillahi kam kathura jirahi wadaqa bi fushatin alya madahu geedku waa cidlo oo tuulada uma dhawo ninkan ku hoos xiranna wuxuu halis ugu jiraa inay cunaan duwaagta iyo bahalaha waa la dayacay oo waxa loola dhaqmay si aan qof aadama ah oo nool loola dhaqmin waxaana la inoo sheegay in la sixray 15 sano oo cimrigiisa kamid ah waxa uu ku hoos qaatay hadba in lagu xiro geedkii ugu dambeeyay waa kan uu ku xiran yahay halkan ayaa lagu ilaabay cid cunto u keento malahan oo aysan ka ahayn hooyadiis oo da' tabarna u weysay hadii ay furi lahayd markii aan geedka ku hoos booqday ereyga ugu horeeyay oo dhaha wuxuu ahaa alla walaalkeeyow ku waayay waligeena ana ma arag alla walaalkeeyo waayay ana waxaan ugu jawaabay walaalka oo walaalo Soomaaliyeed wato ayaa maanta ku yimid geedkana hadda ayaa kugu dambayso oo kaama tagi doono wallahi dhabtii aad ayuu u farxay habeenkii geedka intuu qaybta sare fuulo isagoo ay silsilada ku xiran tahay ayuu sidan ugu hurdaa tani waa cinqaab iyo ku xadgudub balaaran oo lagu la kacay walaalkan dhimirka ka xanuunsanayo 14 sano subax iyo habeen inaad ku hoos xirnaato geedkan cidlada ah waa dulmi balaaran waxa kale oo ka sii daran in xal loo arkay in la tuuro furaha 7 sano ka hor si aan bal loo furin oo la sugo kaliya inta uu ka dhimanayo si quraca cidlada ah loogu hoos doogo wallahi aad baan uga niyad jabay oo dadka meesha ku nool waxaan dareemay inay yihiin kuwa manaxayaala waxaana durbaba raasada masaar si aan u jaro silsilada adag ee qofuladu ku mirireen ee walaalkan muddada 14 sano uu ku xirnaa ilaahay ayaa noo fududeeyay oo silsiladii waa noo go'day siliska intiisa kale isaga oo wato waxaan u soo kaxeeyay xarunta daryeelka dhimirka ee Dr. Xabeeb ee degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose halkaas markii aan keenana waxaan isku daynay inaan dharka ka siibno wiilku waa mid baari ah laakiin muddo ayaan ugu qaadatay inaan bashay ka bedelno oo 20 shay ku dhawaad ayuu kor iyo hoosba xirnaa alxamdulillah ugu dambeyn dharkii waan ka wada siibnay timihi ayaan ka xiirnay waxa aad sugaysaana waan u labisnay baaritaano dhakhtarka ayuu maray wareysiye ayaa